Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawaada asxaabay mar kale kanaalkeena Xogsida Media. Xilli ay sii kordhayso dhibaatada shaqo la'aanta ee ka jirta caalamka, haddana dadka qaar waxay ku fikireen sidii loo abuuri lahaa fursad shaqo. Qaar ka mid ah shaqooyinka ugu yaabka badan adduunka waxaa ka mid ah kuwa ay dad qaar nolol maalmeedkooda ay ka soo saartaan, isla markaana noloshooda ay ku dabaraan. Haddaba daawada halkan waxaan kugula wadaagi doonaa 10 shaqo ee adduunka ugu yaabka badan. 1. In qof kilkishiisa la ursado si loo ogaado tayada barafuunka oo soo marsaday. Haddii aad tahay qof ku fiican wax urinta iyo kala garashada carafta barafuunada, waxaa lagu hayaa fursad. Waxaa laga rabaa inay qofka kilkishiisa sanka saarto si aad u xaqiijiso tayada carafta barafuunka oo isla markaasi soo marsaday. Haddii aad shaqadan qabato, waxaad tijaabinaysaa barafuuno kala duwan, waxaana shirkadaha soo warshadaysiinaysaa talooyin ku saabsan in wax laga bedelo tayada barafuunkaas. 2. In dadka lagu riixo tareenada. Shaqadan waxaa laga helaa dalka Jabaan, maadaama xilliga subaxdii wadooyinka buux dhaafiyaan dadka tareenada raaca. Waddanka Jabaan wuxuu ka mid yahay dalalka shacabkiisu ugu mashquulka badan yihiin, waana in la xaqiijiyo sida uu qof walba goobtiisa shaqada uga tagi lahaa xilli ku habboon. Maadaama ay dad aad u badan ay socdaan, dowladda waxay shaqaaleysiisay dad xirfad u leh inay shacabka lugay ku riixaan tareenada si uusan qofna uga daahin shaqadiisa. Marmarka qaar waxay riixaan dadka labalabaynaya inay tareenka raacaan haddii u malaynayaan inuu buuxo. Dadka shaqadaasi ku jira waa inay xirtaan dhar cadcad iyo galoofisyaha gacmaha la gashto. Saacadaha ay shaqaynayaan waa aroortii iyo fiidkii hore. Shaqadaani waxaa lagu tilmaamaa mid dheeri ah, inta badan waxaa qabta ardada, laakiin lama oga mushaarka lagu qaato. 3. In la kiraysto wiil saaxiib jacayl ah. Magaalada Tokyo dhexdeeda haddii aad lacag haysato, waxaa kuu fududaanaysa inaad hesho wiil kula sameeyo saaxiibtinimo jacayl. Dad badan la yaab ayay ku tahay arrintaas, balse waa shaqo sii xoogaysanaysa iminka. 4. In qof loo galo saf. Isla waddanka Jabaan waxaa ka jira dad shaqo ahaan uga faa'iidaysta in qof daahsan ama awoodin taagnaanta loo galo saf dheer oo ku suga adeegaasi markaasi uu rabay. Mushaarka ay qaataan dadkaasi wuxuu ku xiran yahay hadba intuu la eg yahay safka iyo waqtiga ay qofkaasi sugayeen. 5. In la ursado warqadaha musqulaha. Inta aan suuqa la soo gelin, warshadda gudaheeda waxaa ka shaqeeya dad ay hawshoodu tahay inay ursadaan marka la sameeyo iyo marka la isticmaalo kadib. Dadka loo qabto shaqooyinkaas waxay u badan yihiin talo ku aadan in warqadaha ay sameynayaan ay noqdaan kuwo aysan caraftooda isbedelin marka la isticmaalo iyo intaan la isticmaalin ka horba. 6. Saaxashada. Waa suuragal inaad la yaaban tahay in hurdo lagu helayo mushaar. Haa, waa sax, dad ayaa lacag ku siiya inay seexdaan. Waxay u shaqaynayaan saynisyahano cilmi baaris ku haya dhibaatooyinka hurdo la'aanta. Waxaa la siinayaa daawooyin lagu hurdo si loo tijaabiyo, sidaas ayayna lacag ku helaan. 7. Nadiifinta mataga. Waddamo badan oo ka mid ah reer galbeedka, tani waa shaqo si joogto ah looga qabto goobaha ay dadweynuhu ku badan yihiin sida basaska iyo tareenada ama meelaha lagu dukaamaysto. Qof walba shaqadaasi ma qabto, balse waxaa la siiyaa dad aqoon u leh. Haddii aad diyaar u tahay shaqadan, waxaad tegaysaa goobaha dadweynaha ay joogaan adigoo sugaya in qof uu matago si aad durbadiiba aad u nadiifisid meeshaas lagu matagay. Waa lagu soo dhaweynaa markaad shaqadaasi doonatid, laakiin su'aasha waxay tahay, ma samayn kartaa? 8. Kala garashada digaaga labka iyo dheddigga. Hawsha waa in la kala aqoonsado digaaga yaryarka inay lab yihiin ama inay dheddig yihiin. Dalka Ingiriiska shirkad ku taala ayaa sanadkii la soo dhaafay shaacisay inay yaraadeen dadka khibraddaasi u leh shaqadan oo soo raadsada, iyadoo xitaa sanad walba qofka lagu siinaya lacag dhan 40,000 oo Gini ah. Tani waxay ka dhigan tahay in shaqadaas hadda laga heli karo waddanka UK. Dadka doonaya shaqadaas waa inay haystaan shahaado muujinaysa inay qaateen tababar 3 sano ah oo la xiriira kala garashada jinsiga digaaga. 9. In taarikada gaariga la qariyo. Waddanka Iiraan ayaa laga hirgeliyay sharci lagu yaraynayo saxmadda gawaarida, kaasoo baabuurta maalmo u kala sameynaysa inay magaalada kala aadaan. Dadka gawaarida leh ayaa durbadiiba bilaabay inay shaqaaleysiiyaan dad u qariya taarikada marka ay joogaan goobaha ay ku xiran tahay CC kaamirada si aan loo arkin xilli ay sharciga jebinayaan. 10. Shaqada baroorashada. Shaqadan xiiso ayay ku yeelatay wadamo badan,
haddii aad u ooyi karto qof dhintay oo xitaa aadan aqoon isaga iyo qaraabadiisa toona, shaqadaani waad u qalantaa. waxaa laga rabaa inaad ilin badan u daadisay qof aadan adiga aqoon, isla markaasna adigoo qaylinaya. inkastoo ii muuqato shaqo la yaab leh, haddana waxay ka mid tahay shaqooyinka kale. dhalinyaro badan ayaa shaqadaani nolol maalmeedkooda ka soo saara. waddamo ay ka mid yihiin Kenya iyo Nigeria ayaa shaqadaani aad looga xiiseeyaa.